عليكم ورحمة الله وبركاته. غير شرفت الملك استاذوني ذيك جوكتان كسو دوادي يوتيوب جناك سيرت قروحدا وولاشين زينب ما أنت أنا هلكم حاجة هذا دونا إن شاء الله بإذن الله الكريم. هارها إن بدن قبلها هذا كهر فيديو لور جهرت وكسو سمي لو فيديو مية ما كان سدح فيديو كسو سمي وهارها قصيصة إن بدن قبلها سؤال ويقصوا ويدين إنستغرام كمل ربا marka walaalay qaaliga meel kasta dunida joogtaan horto haaraha waa inii soo sheegay waan ka soo hadlay waxaan idinkaga soo hadlay waxay ahayd because aniga cilad haysata fahanteen cilada marka aad ku haysato waxa isku dabiibtay qaabka isku daaweysay yaani inaan idila wadaago baan jeclaystay maadaama aniga aan youtuber ahay gabdhaha iyagana cilada haaraha haysta qofba cilad baa haysta dadka gabdhaha qaar wajigooda finan iyo waxa nafta u keenay gabdhaha qaarna waxa u keenay haaraha oo kaleeto gabdhaha qaar si qalqaleel ama wax un yaani qof walba meel unba skin problem ka haysta maaha wax aad kaliya ku haysta maaha wax ani kaliya haysta waa wax badan gabdhaha yaani badankood u haysto skin problem marka walaalay qaaliga ah karaal hada codkayga duu kaliya rahayn waxa ay tahay dhawrta soo kacay waxaan rabaa inaan idin sheego aniga dawo aan isticmaalay oo hadda ka horna idila soo wadaagay oo mar walba gabdhaha ay igu soo cushaan abaa xagee ka heli karnaa abaasay u heli karnaa abaasay loo isticmaalaa iyo wax la mid ah dawadaas waxa la dhahaa hydroquinone ayaa la dhahaa macnaheedu dawadaas aytid waa yaani waxa ugu muhiimsan oo ugu munaasabsan waaye oo loo isticmaali karo markii aad haara kugu xumaadaan haara waaweyn aad qabtid haaraha macnaheedu ay sida malasma oo kale hadda qabtid haarahan la dhaho xataa finka markuu kugu xumaado haaru kan keena madow badan waxaas dhan ayay daawaysaa marka way ka baabi'inaysaa haddii aad wadid muddo si toos u wadid adigu ilaa 4 bil 5 bil hadaa wadid way ka baabi'inaysaa inta aan marka insha Allah ka hadlin dawadaas iyada ah dib idinku soo celin hore uga soo hadlay fiidiyoyaasheedii kalena marka hore waxaan rabaa inaan idin sheego haaraha يعني محاكينا مرة بدنا وهكسر هلا يعني جست قبلها يقول عصب سأوقف فايدستان إن أو قادن هارا حاجة إيمانيان محاسك كنتا لما روان هارتو حكوا كيني كرتو مركي قرح وجبتو قرح ذا مني هذا إسكبرو تكتيكرينين أو مدة بدن قرح كل حسعتي مركز دم بحكوا بلا بدونتا إن يكوا كنتو هارا أو يعني هايبر بيجمنتيشن إن يكوا بلود مقار كأجن معناها هذا ركت لبنا يقصو مدوادي إن بشمها كركودا ميلهن أو كلاته وحيابنا إنه عسنك كركيسة يوحنا ملا يعني حب مال بهارت خوف مال بكقبسته وجهي هارت يعني مركا تاس أو كسونا هذا marka qorraxda iyada waa wax kamid ah number 1 waaye number 2 waxa inuu keeni karta hadii aad qabtid xanuuno maqaarka ku dhaco oo la dhaho eczema iyo psoriasis iyo dadka qabtid iyagana way ku keeni karaan maqaarkaaga haarahaas waxa kale oo jirto iyadana haaro waxa ku keeni kara finanka kugu xumaado kale special finka marka inta labada farq qabatay saas ugu bujisid ma aragtay taas waxay ku keenaysaa inay kugu madowaato madowgaas ay ku madoowaatana يعني دخسة كاغا بابين هالكاس هار عمل كوغو نقطو كلا بوجس واتا تاوتي فيلم كي markay kugu madoowadaan marka waxay noqonaysaa inaad yeelatid wajigaagu madow u yeesho ma fahanti oo haara aan aadiyad taasna way ku keeni kartaa waxa kale oo ku keeni kara haaro kale oo iyadana loo yaqaan jirto malasma taasna in badan waxa inta badan waxay ku dhacdaa ama laga helaa qorraxda waa laga helaa number 1 waxa kale oo laga helaa hormonal imbalance ee qabtid oo badana hormonal imbalance-gan wuxuu dhacaa xilliyada gabadha markay uurka yeelato oo kaleeto hormonaadkeeda isbeddelay markaas haara laga yaabo dhabanadina isku ah balse markay dhasho ay caadi marka dambe inay ka soo baabada laga yaabo inay kugu sii socoto markaad dhashid kadib xitaa oo hormone imbalance-ga oo weli saas u qalqalsanaado oo markaasna haartina taas isaas darteed maqaarka uu fool xumaado ama haara aad u yeelatid waxa kale oo keeni karta iyadana oo sabab u noqon karta إله بيرك بيلنا waxa kale oo iyadana sabab u noqon karta genetic sabab u noqon karta yani hadii waxaan heredity familkaaga yani wax genetic oo familkaaga yani hooyada ama ayida ama tikas ayida ka sii horeysay ay jiinkaaga haduu ku jiro macni fahanti taasna way keeni kartaa marka intaas waa intaas aytid haaraha iyo waxyaabaha kan keeno insha Allah oo kooban oo yani inta way ka balaarantaa cilmigu laakiin waa diisoo koobay fahan concept yani concept guud ina ka qaadataan araba yani fahan ahaan haarahan xagga ka imanayaan marka taas waa taas haarahaas yani waxyaabahaas keenta saas ay kugu iman kartaa adigana kuguna dhici karta
waxay ahaataba ama siday ahaataba waxaa usoo gudbayna maxaa isku daaweyn kartaa dawadii u horeysa oo number 1 oo aan dhowr jeer kasoo hadlan waxa waaye dawada la dhaho hydroquinone dawadaasaytii runtii iyadoo boomaataa la helaa iyadoo I think liquid camal waa helaysaa biyo camal ah Soomaali waa laga helaa gabdhaha la soo shirgareeyaa jiray oo dhahay kana haysana waa isticmaali kartaa almuhim inaad taas isticmaasho 2% marka hore isku bilow maqaarkaaga haddii aad la soo qabsato kadib 4% isticmaali kartaa marka taas ayaa wadaysaa ilaa iyo muddo 3 bil ugu yaraan ama ay ka badan haddii 3 bil gudaheeda kaaga baabaado waa iska deynaysaa because dawadaan looguma talagelin muddo badan inaad isticmaashid oo wax walba daawo kasta waxay leedahay waqti loogu talagalay iyo qaab loo isticmaalo wax la dhaho forever iska isticmaalaya ma jirto aniga idila hadlaayo dawadaas waxaan isticmaalaya muddo 3 bilood toos u isticmaalaya runtii haarihi waa iga soo baabaaday wax yar geeska dhabanada neetidiya oo hadda ka hor yani wajigeeda uu gubtay hadda ka hor yani waxaan ku gubtay dab iga gaaray taasaa marka iga baabi'ila oo wax yar macnaha meel dheer ah taasna maxaa dhihi jiray ayada naftirkeeda iska soo aad ma loo dareemaa laakiin iska soo baabi'i doontaa laakiin wajigeyga indhaha hoostooda meelahan haaro badan aan ku lahaa oo micnihii yani xoogaa muuqdo dawadaas iga baabi'is alxamdulillah anigu kulli waan ku caafimaad hydroquinone gabdhaha ay dhahaye hydroquinone hadaaba ka sheekeynaysid oo hydroquinone aad dadka u sheegaysid dee waxba meesha kumaysa baa iska tag bay dhaheen yani dawooyinka la isku cadeeyo ee dumarku mataqaanaa whitening-ka loo isticmaalo oo meel walbo way ku jirtaa hydroquinone waxaa ku jirta mercury yani sunyaal badan ku jirta markii long term la isticmaalo marka maxay keentaa in adiga hadhow damage ku gaarsiiso so taas waa hydroquinone ma aha wax yani sina waa u fiican tahay maxaa yeelay markaas sida loogu talagalay iyo wadada saxda dawo kasta waqti bay leedahay saa idin sheegay dawo kasta waqti bay leedahay time bay leedahay la isticmaalo si loo isticmaalay macnaha leedahan ka wada time yani waqtigaas waxda ama habeenkii isticmaal oo kale 2 times a day 3 times a day waxaad isticmaashaa 3 months waxaas ku qoran laakiin hadda tiraad aniga forever iska isticmaali dee damage ku gaarsiinaysa wax walba markii la iska badiyo dhibkeeda leedahay wax walbana yani hadda dermophyte-ka iyo benophyte gabdhaha yani waxaas dhan skin-ka loogu talagalay skin problems loogu talagalay maqaar in lagu daaweeyo loogu talagalay ma aha wax la dhahay la isku cadeeyo haddana dada isku cadeen ahaan u isticmaalo oo muddo badan isticmaalo marka muddo badan isticmaashay iyaga naftirkooda waxaa loogu talagalay waqti kooban 2 weeks 3 weeks I mean 1 month dhakhtarka suu kugu soo qoro waayo cilada markaas maqaarkaaga haysato saa ugu daaweyn kartid waay marka haddii aad tiraado waa iska wadaay wixii hadhow adiga kugu noqonaysaa damage ku keenaysaa jirkaaga sun kugu noqonaysaa jirkaaga baabi'inaysaa marka almuhim waxa waaye hydroquinone maxaa la dhihi jiray sabab baa loo soo saaray sababta loo soo saarana maqaarka loo soo saaro soo maha problem maqaar ku dhac sida malaasmada oo kale eczema dadka qabo cirrhosis dadka qabo ayaa loogu talagalay inay isticmaalaan hydroquinone laakiin maxaa loogu talagalay muddo cayiman inay isticmaalaan oo from 1 month ilaa iyo 3 months 4 months meelaas adiga 5 months iyo kugu badnaansho tan kale maxaa muhiim ah oo iyadana aan aad muhiim u ah gabdhaha u sheega walaalahayga aan ugu soo celinay mar kuwaad iyo mar labaad ba because aniga ma rabo wax aan halkan ka soo sheegay in maxaa la dhihi jiray inta damage idinka idin gaarsiiso ama dhibaato idinku noqoto anigana qiyaamaha la ii qabsado because kelmada afkaaga ka soo baxayso ilaahay xaggiisa way ka xisaabsan tahay marka markasta waxa aan ka fikiraa wax aan dhib xag alla iiga imaanin number 1 ma fahantay waayo idinka haddaan dhibaato aan idin gaarsiiyo ama aan wada qaldan idin sheego ama wax si qaldan idin sheego ana ilaahay waa igula xisaabtan subxaanahu wa tacaala marka muhiimada meeshaan taal waxa waaye meeshan waa lagu wada jiraa laakiin qof walba iyo alcabsigiisa iyo sidoo ma garanaysa ay tinkiisa uga fikiraya oo waa different aniga shakhsi ahaan waxaan rabaa sheegi karaa balse alxamdulillah yani waxaan ka baqaa allaha يعني كونك أبورتي عز وجل ما نتشعر قف ولا كي أنا مسكايد كرايا أما أن سقلدن وحقوق الشيء أنت أقونت ذا لكتا ولو كان قليل يعني مر بينا ما تقنا سقلدن وحقوق بي I want الصحة أنا معنا وحربا الصحة أنا وحيد حقوق الشيء أما سيد أنا وحي أنفعين ما فهمت هذا إسهان وإسكاء مصايا فليقل غير أو ليصمد آليا ما فهمت المهم قبلها يوقف سنة هيدروكوينون هذا شكتب معنا باي محاكا لو صوت عمل هيدروكوينون وداو لو طلق وح مقارك سكين برابلين كودعة لو نطلق لمدعي الاستعمال ما هو واحد استعمال forever I never said إن أنا في فيديو ياشي كومارهم ولقي اللي هي يعني استعمال forever ما فهمت for you أنت عادي مركا هارتها كاسو بابس إلا يو هل بال إلا يو 6 بال
tartiib marso macni ilaa iyo yani inta u dhaxayso haday 3 months kaaga dhamaata heart iska jooji haday 4 months kaaga dhamaata iska jooji laakiin hadii kale marka 3 months 4 months wadid camal jooji gaab geli waxyaabo kale waxaa jirta isku raacayn kartid iska marso hadana marka hadana hada aragto heart inay kugu soo noqdo hadana dib ugu soo noqo you know what I mean waxan macnaha ma fiicna in la iska wado every day lama rabo gaab waa ina u dhaxaysiisa أنا هذا هارد يقصون نقطة ما يسقط درهم وسوء عشانها لكن هذا أنا مدير قوة استعماله هارد مك يقبل بعض واسك جوجنا هذا ندن وحيجا كلا أو أنا كقول وحيابا كلا مك وحاجة الناتورال ingredients أو متقنا هيدر كونون عمل وهذا كبدلين كرتي مكاتن استعمال 3 months كجوجي كون كلا وايد شيء ما تأدي شيء إن شاء الله taasina waa taas mid kale qodobka muhiimka ah idin sheegay hadda waxa waa idin dhahay mar inaan aqrada ku soo waxa waay number 1 abay hadda uu reeda please ha isticmaalin dawada hydro quinone فضلا هذا المنوجنس بليس استعماله هذا يعني ربطت إنا أور يلنتنا أو أور إنا يلتد اسكو ديارنا سجركا أنا فضلا ها استعماله سدحاس وقتها استعمال سدحاس جربها استعمال only time معنا وقت كلي أد استعمالي كرت هذا الكونون وحوا وقت جا محل يجري أو أد المنوجين يعني أورنهن إسلام أهان تصنع هذا أورنا يلت اسكو ديارنا أو معنا قف عادي أو الميسي حلي نجمة صوت رافيو يعني وديار جروسن إنه مقار كيس وحكة بدلو taasi waa taas marka hydroquinone sawirka halkan aan soo dhigay aan ka soo hadlay hadda iyada ma isticmaalo laakiin waxaan isticmaalaa aniga oo wali wada dawadan kale iyadana aan sheegay in haara u fiican tahay oo inay isku isticmaalaan labadaba hydroquinone iyo tan tretinoin kan okay saad aragtaan macnaheedu wax waa finish gareey waxba kuma jirto yani aakhir laxday maraysa bahashan marka waxaan isticmaalaa aniga ilaa yani hadda dhowr bilood muddo waa waday hadda bahashan marmar maalin kasta marsado marmar gas waa si hal maalin laba maalin hadan maalinta kale waa iska marsada laana always waa iska fiican tahay maqaarka u fiican tahay maxaa yeelay maqaarka dad skin maarta maqaarka dhinta ka qaadaysa number 1 number 2 wax way wajiga waxay ka ilaalinaysaa haar waxa soo yeesho number 3 finanka ka ilaalinaysaa abayaalka ku xiran janaalkayga ee ugu qaaliga iyo wiilashii gabdhahaba fadlan tretinoinka naftirkeeda ha isticmaal hadii aad uur leedahay ha isticmaal hadii aad ilmo nuujinaysid ma garatay ayada naftirkeeda ma loogu talagelin xilliyada noocaas in isticmaasho kaliya isticmaal xilliga aad uurka lahayn ama aad nuujinaynin aad mataqaana yani caadi iska tahay marka insha Allah markaas isticmaala hadii fin aad qabto finka oo kale way ka ilaalinaysaa maqaarkaaga skinka ka qaadaysaa waxyaabo badan faa'iido u leedahay xitaa haaraha yani way u fiican tahay soo marka tan waa idin soo sheegay in badan gabdhaha way soo weydiiyeen iyada marka kambaniyo badan yani waxaan kambaniyo badan soo saar kambani name-kii iyo waxa isku qaldaan magaca caadiga ah marka dawadan magaceeda tretinoin ayaa la dhahaa halkaan idin ku soo sawiraya insha Allah idin ku soo qoraya it doesn't matter kambaniga soo saarayo wadanka aad joogtid kambaniyaal badan aad joogo soo marka yani kambaniyaashu ku kala duwanaan karaan laakiin magaca daawada mar walba isma bedesho tretinoin waa tretinoin ama retinol habaka u taqlabada isku mid waay ma fahantay mar way ku siinayaan ma fahantay wayna kambaniga laga yaabo inuu ku kala duwan yihiin laakiin mar walba dawadii waa dawadii way ku siinay 0.05 midka ay ku qaran tahayna soo gata insha Allah biin ilaa ka hada fiin qabti fiin marka xoogaa bahashan marka ko aad bilaabaysid xoogaa way ku dhibaysaa dadka qaar way dhibtaa aniga ima dhibin ilaa amarkiisa dhanno laakiin dadka qaar marka isticmaalaan gabdhaha waxay sheegay wajiga wuuna balbalay wuuna caasaaday marka always bahashan qafiif baa loo marsadaa si qafiif ah baa loo marsadaa maxaa dhihi jiray habeenkii oo kaleeto oo iska marsanaysa si qafiif ah habeenkii kali ka badan only habeen night time isticmaalsa si qafiif ah isticmaalsa dad doontid macni waxa ka hor marsanaysa kar vitamin E oil oo kale hada haysatid ama hadad kareen kale haysatid oo ma taqaana caadi iska ah oo skinka qoynay moisturizer ah wadka because maqaarkana way qalqalajisaa soo marka tan marsanaysa waa inaad maqaarkaaga mar walbana aad qoyaanka ugu dadaashaa iyo waxyaabaha maqaarka qoynaya soo insha Allah taas inaan isla fahanaa dareemay tretinoin iyo hydroquinone hore aan ka soo hadlay mar labaadna waa idin kugu soo ceshay waxaan rajayn doonaa dhammaan gabdhaha janaalka ku xiran inay fahmeen inaad dareemeen ujeedada aan ka wado iyo waxa aan ka wado bilis gabdho marar badan waa soo weydiiseen anigu labadaas aan isticmaalay labadiina Ilaahay waa igu daaweeyay hadeerna tan aan isticmaalaa wali tii hydroquinone tan waa iska daayay sababtoo ah haari way iga dhamaadeen soo tan kaligeeda isticmaala waxaa marka kale oo isticmaala waxyaabahaas guriga dhexdiisa lagu marsado sida guruuda oo kaleeto waxaan kaloo isticmaalaa biyaha qalka oo kale waxaan isticmaalaa iyo waxyaabahaas insha Allah biin ilaahay karim video kale part 2 aan ka dhigayo maxaa yeelay videoga uu dheeraad inaan ku caajistaan laga yaabaa part 2 insha Allah waxaan asagana kaga hadli doonaa waxyaabaha hydroquinone bedelkeeda hada uur leedahay oo gabadha uur leedahay oo kale hadaad hooyo nuujinayso aad kaga maarmi kartid
xaafadda agteeda shaqo ku socota waxbaa mashiin baa qeylinayno guri baa la dhisaya I think marka muhiimadda waxa waaye haddii uur leedahay haddaa gabar hooyo nuujinaysa tahay haddaa uur isku diyaarinaysa dhammaan wax hydroquinone kuu bedeli kara oo natural ingredients ah oo dabiici ah oo herbal ah oo dhibaatana skinka u keenin iyo caafimaadka kaleeto guud ahaan insha Allah marka taasa rabaa inaan kaga soo hadlo part 2ga soo fadlan la soco qaybta labaad way ku xigi doontaa laba video isku xigto part 1 iyo part 2 ayaan ka dhigi doonaa marka part 2gana insha Allah ha moogaanina hana ka maqnaanin haddaba aad ayaad u mahadsantihiin daawashada videoga aad daawateen fadlan haddii aad ka faa'iiday videoyaasheeda like-ta suulka maaragtay meesha thumbs up-ka بليز كلفتا انت بدو داوتان تاسنا waa iga ilowdaan like waa ina isiisaan oo macnihi aad ii muujisaan inaan shaqada aan wada ay tahay shaqo fiican sidoo kalena commentiyadiina aad u qurux badan oo dhiirigelinta iyo qiimaha ay qadarinta iskugu darsatay wallahi runtii aad ayaad kaga mahadcelinaya mar walba sida wanaagsan aad ii sharftaan commentigaasna ha iga ilaawinin aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashada videoga aad daawateen waxaan rabaa inaan idin sheego videogan maanta intaas ku egyahay aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashada videoga aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashada videoga aad daawateen fadlan haddaad nagu cusubtahay subscribe-ka ha ilaawin gambaleelkana furo dhammaan akhyaarta hore idila joogtan waxaan idin leeyahay dhammaantiin aad ayaad ugu mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad ugu xiran tihiin channelkayga iyo commentiyadana quruxda iyo qiimaha iyo qadarinta iyo dhiirigelinta badan fadlan ha iga ilaawin suulka thumbs up hadda inay siisaan inta badan taas waad iga ilowdaan soo haddii aad u aragtid barnaamijyada aniga aan idin soo bandhigaya inay tahay kuwo idiin faa'iideysa suulka ha iga ilaawin walaashada qaaliga iyo walaalkayga qaaliga sidoo kaleetana commentiga quruxda badan ha iga ilaawin waa 1 second waa 1 minute intaas aniga waxay ii tahay dhiirigelin runtii iyo mataqaanaa inaan hawsha halka kasii wado dhammaantiin aad u mahadsantihiin inta aan video lamid aan ku kulmi doono dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa khayr iyo baraka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh I love you